مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاء وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. kulanti wacan waxaan hore u sii wadaynaa duruustii siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam waan wadnay waxaan kasoo sheekeynay nabiga calayhi salaatu wasalaam markii intaanan malakul jibriil u imaanin in uu jeclaystay waqtiyadii dambe in uu magaalada banaankeeda u baxo uu kusoo cibaadaysto. waxaan kasoo sheekeynay inuu tegi jiray buur la oran jiray jabalu nuur kahfi ku yaalo qaaru xiraa la yidhaahdo inuu ku cibaadaysan jiray bisha ramadaan inuu waqtigaas u bixi jiray ayaan kasoo sheekeynay. waxaan kaloo kasoo sheekeynay calaamadihii nebinimada ee kala duwanaa eryadii baan kasoo sheekeynay uu nabiga calayhi salaam arki jiray oo sideeda u dhici jirtay subaxii markii uu soo kaco marka isagoo sidaa ku sugan meeshaana ku cibaadaysanaya qaaru xiraa ayaa waxaa u yimid malakul jibriil. waqtiga uu imaanayana waxay ahayd habeen isniina oo bisha ramadaan ka mid ah ayay ahayd. maalintaas marka ay ku beegneed bisha ay kaga beegneed waa laisku khilaafaa maalmo kala duwan ayay culummadu sheegaan laakiin marka laga fiiriyo inay habeenkaas uu ahaa habeen laylatul qadri ah maadaama qur-aanka uu soo degtay fii laylatil qadri qur-aanka soo degashadiisa wuxuu bilowday laylatul qadri. laylatul qadrina axaadiis baa ku soo aroortay in uu yahay ku aadan yahay tobanka dambe ee ramadaanka in laga raadiyo ayaa axaadiis ku soo aroortay. marka habeenka isniinta ah waa habeen ka mid ah tobankii dambe ee ramadaanka sidaas ayay marka culammada qaar ku taxqiijiyeen wallahu aclam. marka malakul jibriil ayaa u yimid isagoo nabiga calayhi salaatu wasalaam meeshiisii ee ku cibaadaysanaya oo ku jira wuxuu ku yiri iqra akhri buu ku yiri. nabiga calayhi salaatu wasalaamna ma ahayn qof wax akhriya marka wuxuu ku yiri ma ana biqaari anigu ma ahi mid wax akhriya. marka malagii ayaa qabtay oo aad u ciriiriyey si adagna u qabtay ilaa uu nabiga calayhi salaatu wasalaam aad ugu dhibtooday kadibna wuu sii daayey. wuxuu ku yiri mar labaad iqra akhri buu ku yiri. wuxuu yiri sidoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam ma ana biqaari anigu ma ahi mid wax akhriya. haddana waa uu qabtay mar labaad aad buu u qabtay wuu ciriiriyey ilaa uu nabiga calayhi salaam ku rafaado kadib haddana wuu sii daayey. mar saddexaad wuxuu ku yiri iqra haddana wuxuu yiri ma ana biqaari. markii saddexaad anigu ma ahi mid wax akhriya. haddana wuu qabtay ilaa uu aad u ciriiriyo oo aad ugu dhibtooda nabiga calayhi salaatu wasalaam. haddana wuu sii daayey wuxuu ku yiri iqra bismi rabbika aladii khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. آيات كاس أيو كدو الأخري روايات كقارو حشيقيان مركي وسدح جير قبطي ومركي سدحات سيداي إنه هذا مركا أفراد كويري اقرأ أخري ونبي عليه الصلاة والسلام مركا يري ما أقرأ ما أخريها ما قرأت ما دام
uu saddexdii jeer hore yidhi anigu wax ma akhriyo, qabasho iyo culays badan uu kala kulmay. markaan uu is yiri bal culayskan maaragta kaa fududaadee bal weydii maxaan akhriyaa dheh, ma aqra maxaan akhriyaa buu yidhi. markaasuu malagii ugu jawaabay aayaadkan inuu ku dul akhriyo iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam. aayaadkaas ayaa soo degtay oo ah maaragta aayaadka ugu horeeya suuratulcalaq. meeshaasna ilaahay subxaana watacaala waxaa maaragta nooga bilowday khayr aad u fara badan. qur-aankii baa bilowday soo degashadiisii, hadalkii alla subxaana watacaala oo maaragta ilaahay noo dhex dhigay hanuun, noo dhex dhigay waano, mawcida noo dhex dhigay. ilaahay subxaana watacaala uu ka dhigay nuur, uu ka dhigay ilaahay subxaana watacaala uu ka dhigay maaragta shifaa limaa fi suduur, oo ilaahay subxaana watacaala ka dhigay, iyo sifaadka faraha badan leh qur-aanku u leeyahay. meeshaas marka runtii waxay ahayd yacni itisaalkii xiriirkii u dhexeeyey samada iyo dhulka oo dib u soo noqday bay macnaha ka tarjumaysay. aayaadkanna waxaa ilaahay subxaana watacaala noogu tilmaamay sifaadka allah subxaana casa wajalla, oo sifada ugu horeysa na lagugu sheegay inay tahay sifatul khalq, sifadii wax abuurista allah subxaana watacaala inuu yahay allaha koonkan o dhan abuuray, wax yar iyo wax weyn, cid kasto ama shay kastoo koonkan ku dhex sugan allihii abuuray, oo weliba si isku jaan go-an oo maaragtay qurxoon u abuuray weeye subxaanahu casa wajal. iqra bismi rabbika aladii khalaq, allihii wax abuuray weye, koonkan dhan abuuray. haddana insaankii baa gooni loo sii sheegay, oo gooni loo karaameeyey, oo gooni maaragtay loo taqdiiriyey, oo koonkii o dhan loo maaragtay hogaamiyey. khalaqa alinsaana min calaq. insaankan maskiinka ah koonkan haddii loo fiiriyo waxba aanan ka dhex ahayn, asaga laftirkiisa marka hore la abuurayay wax maaragtay aad u yaroo tacbaana ahaa, magarate maraaxil soo maray, soo koray. marka hadda u weynaado oo caqli iyo awood ismoodo, dhici karta inuu ilaahay subxana watacaala diintiisii iyo nidaamkiisii iyo nolosha uu ilaahay ugu talagalay uu diido, magarate insaankaas baa ilaahay subxana watacaala la hadlaya, kutub u soo dejinaya, rasuul u soo diray oo jidkiisa xanaa in lagu hago. karaameen intaa ka weyn ma jirta maaragta, aad baa loo karaameeyey. koonkan intaa leeg iyo wuxuu ibni aadan ka dhex yahay, iyo sida asaga cinaayada loo siiyey, iyo sida asaga maaragtay loo hagayo, maaragtay runtii waa shay aad cibro ku filan weeye. macnaha khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam. allah subxaana watacaala karamkiisa wax lasoo koobi kara maa, fadligiisa wax lasoo koobi kara maa. waxa uu bini aadanka u qabtay iyo wuxuu ilaahay subxana watacaala karaameeyey oo maaragtay isku daba saareen nicmooyin, maaragtay wax lasoo koobi kara maa. cilmiga maanta ibni aadanka uu ku faanay oo maaragtay maalinba wax cajaa'ib la ilaahay tusay, allah subxaana watacaala baa baray. isagoon waxba aqoonin ayuu maaragtay koonkan yimid. mid kasta wuxuu caloosha hooyadii kasoo baxaya asoon waxba garanayn. allah subxaana watacaala baa waxyaalihii wax ku baran lahaa, samcigii, basarkii, caqligii wax ku fahmi lahaa kulli sii, kadibna adawaadkii wax ku baran lahaa, qalinkii kulli allah subxana watacaala u tahiyey. aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam. wax uunan garanaynin baa ilaahay subxana watacaala maalin kastaba baraya, maalin kastaba shay cusbaa loo furaya, aafaaq cusub ayaa loo furaya. runtii ilaahay subxaana watacaala fadligiisa, aalaadiisa, sifaadkiisa ayaa aayaadkaana lagu baray. markii intaa aayad ay soo degteen, nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay qalbigiisa ayuu ku dejiyey, waa uu xifdiyey. kadibna gurigii ayuu soo aaday, waa uu soo laabtay isagoo murugaysan, argagaxsan, arrin culus uuna markaa maaragta la kulmay. markuu gurigii yimid, reerkiisii wuxuu ka codsaday maaragta xaaskiisii Khadiija in la dado. maaragta gogashiisii buu tagay, waa la daday. marka xoogaa markuu nastay ayuu marka Khadiija u warramay, wixii uu la kulmay ayuu u sheegay. wuxuuna ku yidhi naftayda ayaan u baqay ayuu ku yidhi, macnaha waxaan aan arkay ama aan la kulmay in wax dhib ah oo maaragtay soo gaaray ama noloshayda kusoo kordhay inay yihiin ayaan ka baqay. marka Khadiija markii ay dhegaysatay, waxay ahayd qof aad u caqli badan una xikmad badan ayay ahayd, wacyigeeduna aad u sareeyo. waxay ku tiri maya, suurtagal ma ahan in waxaan kugu yimid iyo wax
dhib kugu dhacay inuu yahay, laannahu ilaahay subxaanahu watacaala ka filan mayno in uu adiga ku hoojiyo. ilaahay kuma hoojinaya batr adiga. waxbay la soo baxday, istinbaad bay samaysay oo ah nabiga calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisa iyo sifaadkiisa waxa uu sameynayay ayay garanaysa. qof qaraabadii xiriiriya, dadka u baahan kaalmada kaalmeeya, qofkii maskiinka wax tara, qaraabadii martidii wanaajiya oo diyaafadoodii si fiican uga soo baxa ayuu ahaa. macnaha qof aad u khuluq wanaagsan, u dhaqan wanaagsan ayuu ahaa. qofka noocaas oo kale ah ilaahay subxaana watacaala ma hoojiyo. taas ayay la soo baxday waana arrin saxiixa. marka waxay ku tiri soo bax. way soo waday, waxay u geysay in adeerkeed oo la yiraahdo Waraqa ibnu Nawfal ayuu u geysay. wuxuuna ahaa nin nasraani ah oo raacay diintii nabi ciise ayuu ahaa. marka dadkii nabiga calayhi salaam ka horeeyey oo muwaxidiinta ahaa ayuu ka mid ahaa. isaga iyo Zayd ibn Camr ibn Nawfal iyo rag kalaa jiray. saxaabigan Saciid ibn Zayd Faatima bint al-Khataab qabay aabihiis Zayd ibn Camr ibn Nawfal. raggaas waxay ka mid ahaayeen raggii muwaxidiinta ahaa nabiga calayhi salaam ka hore. laakiin Zayd wuxuu kaga duwanaa. Zayd isagu diin mucayana diimihii hore ma uusan qaadanin oo sidiisa ayuu cala alfatra ilaahay ku caabudi jiray. laakiin ninka odaga Waraqa ibn Nawfal wuxuu ahaa nin nasraani u ahaa. marka kitaabka injiilka u akhrin jiray, wax badanoo marka ka garanayay nabiga soo bixi doona ee nabiga khaatam alambiya ah. wax badan ayuu ka garanayay. marka Khadiijo u warantay oo ay tiri bal dhegeyso, in adeerkaa dhegeyso, ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam u warramay. wuxuu arkay buu ka sheekeeyey. Waraqa markii uu intii dhegeystay wuxuu yiri arrintan waa arrin xaqiiqo ah. waxa kuu yimid oo aad aragtayna waa malagii nabi muuse u imaan jiray weeye ayuu ku yiri. wuxuuna yiri laytanii aan ahaan lahaa qof dhalinyaro ah oo xoog leh. haddaan ahaan lahaa maanta aad baan u jeclaan lahaa, ilaahna waan ku garab istaagi lahaa. laytanii haddaan ahaan lahaa, haddaan soo qof waayeela waa. marka wuxuu ka baqaya inuu gaari waayo waqtiga ee nabiga calayhi salaatu wasalaam qoomkiisa magaalada ka saari doonaan. wuxuu yiri waxaan rajeynayaa inaan noolaado maalinta ay qoomkaaga magaalada kaa saari doonaan, laanno inaan kuu gurmado ayaan rabaa. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu la yaabay, laanno magaalada marka aad baa looga jeclaa. marka gariib bay la noqotay. wuxuu yiri ma magaalada iga saari doonaan? wuxuu yiri haa, laannahu qof kasta oo waxa adiga aad la iman doonto oo kale la yimid, dadka way la colaytameen, way la dirireen, wayna dhibaateeyeen. waana sidii sunnooyinkii nebiyadii hore dhan lagu yaqiin. marka hore dadku way jecel yihiin, aad bay u rajeynayaan qofkaan qof aad agtooda qiimo u leh wey, laannahu dhaqanka wanaagsan iyo siirada fiican uu leeyahay qofkaan ayay ku jeclaysanayaan. laakiin markuu xaqa u sheego, baadilkoodan uu ka celiyo, ma rabaan dadka in lagala hadlo baadilkooda. in runta loo sheego oo xaqada la fahansiiyo ma rabaan, laannahu hawadoodii iyo shaydaankii bay rabaan inay iska daba raacaan ee naftooda waxay jeceshahay. intaa kadib waxyigii ayaa kala go'ay oo fatra ayuu kala go'naa. fatradaas culummada markii la taxqiiqiyo maalmo ayay ku koobneed. maalmahaas waxay kala go'ayna runtii culays badan ayay nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ku ahaayeen oo murug badan ayay ku ahayd. maalmihii markii ay dhammaadeen ayaa waxaa bilowday waxyiga ayaa u bilowday. marka maalmahaas waxyigii kala go'ay xikmad ayaa ku jirtay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam nafsiyan inuu u diyaar garoobo isbeddelkaas noloshiisa kusoo kordhay, inuu u diyaar garoobo oo niyadiisii qalbigiisii uu la qabsado. laannahu wixii in haddii laysaga dabageeyo oo hadda marka koowaad ayaad baa kusoo degtay, nebi buu noqday, laakiin rasuul ma noqonin oo lama amrin dadkii inuu u digo oo risaalo lama saarin, keliya waa un loo warramay. marka haddii isla markii hore laga diro waxay ku noqon kartaa culays. laakiin horta in maalmo la siiyo arrinta uu ku fakaro, qalbigiisa ay ku degto. markii koowaad qof walwalay oo argagaxay ayuu ahaa, laakiin markii dambe Khadiijo ay dejisay, Waraqa uu dejiyey, maxay ahayd isagii haddana dhowr maalin naftiisii ay diyaar u noqotay.
waxaa dib u soo bilowday waxyigii. marka maalin isagoo soo baxay oo socda oo runtii ay ku taagan tahay arrintan iyo waxyigan kala go'ay uu ku taagan yahay aad u raadinaya ayuu wuxuu kor ka arkay, cirka ka arkay malagii ugu yimid qaaru xiraa ayuu arkay. markaas ayuu soo orday gurigiisa soo aaday asagoo argagaxsan uu yiri reerkiisa haddana mar kale hala ii dado ayuu yiri. markii la daday oo gogashiisii tagay baa waxaa soo degtay aayaadkii suuratul mudathir ugu horeeyey oo nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu diray oo lagu amray dadka inuu u digo. ilaahi subxaana watacaala uu leeyahay yaa ayuha almudathir qum fa andir, midkaagaan isduuduubaya oo isdadaya kac oo istaag oo dadka u dig. markaan waxaa la amray bashariyadii inuu fariintii gaarsiiyo, risaalada alla subxana watacaala gaarsiiyo. qum fa andir wa rabbaka fakabbir, rabbigaa weyney. weyneynta ugu horeysana waa maxay? in alla subxaana watacaala la caabudo keligii, dadka in loogu yeero oo shirkiga iyo wax alla la wadaajinayo o dhan meesha laga leexiyo. wa rabbaka fakabbir wa thiyaabaka fatahhir, adigiina isdaahiri oo nadaafad iyo tahaara ayaa la amray. dharka daahirintooda waa daahirintii banaanka wey. waxaa kaloo fi luqa alcarabiya dharka laga cabiraa alqalbina waa laga cabiraa thiyaab. mararka qaarkiis qalbiga waa loo isticmaala, ashcaar iyo nasri labadaba waa ku timaada. marka qalbigaaga daahiri, marka gudaha iyo banaanba inuu qofkii isdaahiriyo ayaa meesha. wa thiyaabaka fatahhir warujsa fahjur, wax alla wixii xumaana ka fogaaw oo ka dheeraaw. iyadana isdaahirinta ka mid tahay. warujsa fahjur walaa tamnun tastakthir. shaqo badan uu qaban doonaa nabiga calayhi salaatu wasalaam, dacwuu istaagi doonaa, jihaad buu gelayaa. marka waxaa la leeyahay waxa aa qabanaysid oo camal ah ha badsanin, ha isdhihin wax badanaa qabatay, laakiin alla u celi subxaana watacaala. ilaahay baa kuugu sharfay, ilaahay baa kuugu karaameeyey. marka nabiga calayhi salatu wasalaam haddii la yirahdo fanaxnu awlaa, ma garat isaga waa nabi ilaahay macsuuma oo ilaahay soo diray ilaahay noloshiisa. laakiin annakii marar badan basharka ducaadda waxaa soo geli karta inay is yiraahdaan waxbaa qabatay, shaqo badan ayaa qabatay inay is yiraahdaan, ma garat. marka taasa anaga tawjiihna laga siinaya. walaa tamnun tastakthir walirabbika fasbir, rabbigaa dariiqiisa ku sabar oo adkayso, dhib badanaa mari doonta. warkii hore oo waraqana wuu xasuustaa, haddana waxaa la leeyahay sabar baa la leeyahay, macnaheeda culays iyo dhibaato iyo waxbaa soo socdo. marka ku talagal oo sabar. walirabbika fasbir. intaa markii nabiga calayhi salaam aayaad ay kusoo degteen, nabiga sidii ayuu istaagay. qaama falam yaqcud, maalintaasuu istaagay ilaa uu rabbigii kala kulmo. waa u taagnaa, hooshaas ayuuna waday ilaa ilaahay subxaana watacaala bashariyada nuur uga dhigay oo ilaahay ummadda ku badbaadiyey. qaar badan inta ilaahay ugu talagalay badbaado. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam dacwadii ayuu meesha ka bilaabay. wuxuuna ka bilaabay gurigiisu ka bilaabay, reerkiisu ka bilaabay. khadiija bintu khuwaylid ayaa ahayd qoftii ugu horeysay ee rumaysay oo xaqaa ku raacday bilaa munaasic. qof kaloo ka horeeyey ma jirin. kadibna reerkiisa waxaa guriga la deganaa cali bn abi aalib radia allahu canhu iyo zayd ibni xaaritha radia allahu canhu oo nebiga gurigiisa kula noolaa. qiso dheer buu leeyahay qaabka uu nabiga calayhi salatu wasalaam gurigiis kusoo gaaray si ugula noolaa iyo sida uu nabiga ku xoreeyey uu xataa ka dhigtay wiilkiisa bitabani, iyadoo markii dambe aayaad quraan ay soo degteen oo arrintaa la mamnuucay. marka hadda mawduucaas kama sheekeynayno. zayd iyo cali bin abi aalib oo nabiga gurigiisa ku noolaa ayaa iyagana raacay. nabiga calayhi salatu wasalaam dacwadii wuxuu kaloo u bandhigay saaxiibkiisii qaaliga ahaa abubakar asidiiq radia allahu canhu. asagana hore ayuu ka rumeeyey. dadkoo idilna wuxuu kaga duwanaa inuu ahaa qofka keliya ee aanan dacwada marka loo bandhigay aanan hakanin. dadkoo dhan waxay hakan jireen, hakashada way ku kala duwanaayeen. qofku waqti buu xoogaa dacwadan iyo warkaan loo sheegay inuu hadmiyo oo maskaxda ku gedgediyo ayuu qaadanayay. qaar bay sanawaad ku qaadatay oo xataa dagaalo laysaga horimiyo oo markii dambe soo islaamay. qaar bay ku qaadatay bilal, qaar bay ku qaadatay maalmo, qaar bay ku qaadatay saacado iyo daqaa'iq
inuu arrinta gedgediyo. laakiin abubakr asidiiq maa inuu nabiga calayhi salatu wasalaam u sheegay uu yiri rasuul ilaahay baan ahay uu ii soo diray inaan dadka ugu yeero in alla keliya caabudaan, horuu beeca kala galay, horuu ka islaamay, uu qiray inuu rasuul ilaahay yahay, qaatayna wuxuu ugu yeeray lannu aad buu u garanaya nabiga calayhi salatu wasalaam, sifaadkiisa, dhaqankiisa, wanaagiisa, runtiisa aad buu u garanaya. waxa uu nabiga ugu yeerayna wax la garan karo. allah subxaanahu watacaala koonkaanan abuuray inaan cid kale la wadaajinin, arrin sida laba qof ku muranta maaha, ilaa qof hawadiisa raacayo oo baadil doonaya mooyaane. abubakar markii uu islaamay ma uunan fariisanin, hore wuxuu ka bilaabay inuu dacwadiisii faafiyo oo dadkii gaarsiin intuu gaarsiin karo u gaarsiiyo ayuu hore ka bilaabay. isla markiiba dad buu keenay, macnaha wuxuu ahaa nin aad loo qadariye, lagu yaqaana cilmul ansaab oo dadka ansaabta iyo maaragtay qabaayisha carabta aad u kala yaqaan. marka waa loogu imaan jiray, waa laga dhageysan jiray. marka nin calaaqaad badan loo ahaa, marka dadka uu garanayay oo dadkooda ugu fiican, ugu akhyaarsan, oo maaragtay ku tuhmayay inay yihiin dad yacni khayr jecel oo wanaag inay qaataan diyaar u ah, dadka hawaraaca aanan ahayn ayuu maaragtay xushay oo qofku sheegi karo u sheegay. dacwaduna waxay ku socotay fatradii hore sir bay ku socotay. 3 sane ugu horeyso waxay dacwadu ku socotay qaab sir ah. qaabkaasna wuxuu ahaa in loo sheego qof markaan isleeyahay waa qof wanaagsan oo dhaqan fiican, la isleeyahay waa qofkan waa qaadanaya arrintan, ama haddii ugu yaraato hadduusan qaadanin ma faafinayo oo sirta waa qarinaya, qofkaasaa loo sheegi jiray. laakiin meelaha iyo nawaadida iyo babliga iyo meelaha la isugu yimaada lagama faafin jirin. markii hore dacwada saasay ahayd. hooshii uu istaagay abubakar miraheedii waxaa noqday 5 ka mida raggii ugu horeeyey ee soo islaamay oo kala ahaa cuthmaan ibnu cafaan, zubayr ibnu alcawaam, cabdiraxmaan ibnu cawf, sacd ibnu abi waqaas, talxata ibnu cubaydillaah. raggaas 5 ah ayuu abubakar keenay oo maaragtay warkii u bandhigay, qaatay, nabiga calayhi salaatu wasalaam maaragtay la kulmay oo yacni islaamay. sidii marka dacwadii ku faaftay 3 sano oo dacwadu qarsooneyd. waxaa loo sheegayay qof uun isleeyahay ama waa uun qaadanayaa oo waa qof maaragtay khayr jecel, ama hadday ugu yaraato san soo sheegnay qof aanan faafinaynin oo sirti qarinaya. marka 3 sano dad macquul oo tiro fiican ayaa soo islaamay oo qabaa'ishii reer Maka dhan uu ku dhex faafay oo maaragtay qabiilba qof iyo labo waxbaa ka soo islaamayay. macnaha sidaas ayay dacwadii magaalada Maka ugu dhex faaftay iyadoo aanan jahri ahayn. marka culammada tirooyin kala duwan ay sheegaan dadkii ku islaamay waqtigaas siriyada ilaa 40 baa la sheegaa. waxaa kaloo la sheegaa ilaa 60 inay kor u dhaafayeen dadkii waqtigaas siriyada islaamay. dadkii waqtigaas soo islaamay waxaa ka mid ahaa bilaal ibn rabaax, waxaa ka mid ahaa abu cubayda caamir ibn aljaraax, waxaa ka mid ahaa alarqam ibn abi alarqam, saciid ibnu zayd iyo faatima bint alkhataab. waxaa ka mid ahaa maaragtay maxay ahayd abu salama iyo rag kaloo fara badan ayaa ka mid ahaa. marka sidaa ayay dacwada ku socotay qaabkaas siriyada ah. inkastoo ay siriye ahayd, laakiin xoogaa yar oo akhbaar yaryar ayaa reer Maka gaari jirtay oo aanan marka xaqiiqadeeda aysan garanaynin ayaa gaari jirtay. macluumaad yaroo fafakaday ayaa gaari jiray oo ay aad isku weydiin jireen. waxaa jiray guux baa jiray magaalada, maxamed waxbuu wadaa, waxbuu damacsan yahay, waxbuu qorsheynayaa iyo wax lamid ah. markii ay 3 sano dhammaatay waxaa maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam kusoo degtay aayaad ilaahay uu ku amrayo inuu markaa dacwadii lasoo banbaxo oo dadkii maaragtay si cad u gaarsiiyo. marka aayaadkan waxaa soo degtay marka hore waandir cashiirataka alaqrabiin, marka qaraabadaadii dadkii kugu dhawaa u dig. oo markaan qof lasoo doorto wax loo sheegayay ilaahay kuma filnay dadka in loo yeero oo loo digo xaqii la gaarsiiyo ayaa daruuri noqotay. waxaa kaloo kusoo degatay fasdac bimaa tu'mar waacrid can ilmushrikiin, ma garatay wixii inuu lasoo banbaxo banaanka lasoo istaago ayaa la amray. markaan nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu isugu yeeray qaraabadiisii reer bani haashim ayuu maaragtay ballamiyey. markii ay maaragtay kulmeen ayuu marka rabay inuu la hadlo. markii uu isugu yeerayba
sidaan soo sheegnay quraysh war baa gaargaaray guux yaraa jiray marka abulahab oo raggii loo yeeray ka mid ahaa ayaa isla markiiba hadalka bilaabay intuusan nabiga calayhi salaatu wasalaam hadalka qabsanin abulahab wuxuu yidhi maxamedow waa kuwaana ilma adeerada iyo adeerada halkaana la wada fadhiyaa hadda waa kana hadal wixii diinka baxa ahaa aan la timidne iska dah ma rabno warkaas marka nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu arkay inuu jawiga ku bilowday buuqaas يعني من الحكمة waxay noqotay inuu nabiga markaa warkiisa ka hadlin laano tashwiish ay warka ku bilowday marka nabiga uu iska aamusay jalsadii sida caadigeed bay isaga dhamaatay waa la kala tagay maalin labaad ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam isugu yeeray maalinkaa marka riwaayadka qaar waxay sheegayaan nabiga inuu abulahab ka reebay riwaayadka qaarna waxay sheegayaan inuu joogay marka nabiga ayaa laakiin hadal ka bilaabay oo markaan loogama hormarin ilaahay subxaana wa tacaala ayuu mahad celiyey kadib wuxuu yidhi ina araa'ida laa yakdibu ahlahu raa'idka waxaa qofka qoomkiisa ay dirsadaan oo ay markaa u dirsadaan dadka reer baadiyaha ah qofka biyaha usoo udirasay usoo fiirinaya way markay rabaan inay meel ka guuraan oo meel fiican oo la degi karo qof soo qiimeeye qofka waa qof warkiisa dhow lagu go-ayo hadduu yidhaahdo meeshaasaan soo helay munaasib ah dadkii iyo xoolihii dhan baa lasoo raraya marka qofkaasi dadkiisa been uma sheego لأنه بينتو شيء هلاك بكذا لنا معنا إن الرائد لا يكذب أهله والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة أنا وحانا هاي رسول إلهي صدري بوير وإذن كان قار لإذن كوكو صدري دتكو إذن الله صدري بانا والله لتموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون سان هدا أسيحان إنسان ayaad u dhimanaysaa mar baa la gaaraya aad dhaqdhaqaaq gabtaan oo naftu idinka baxdo ma garate wala tubcathunna kama tastayqidun sida aad hurdada markaad bogto aad u soo kacaysid baa haddana maalintaas waxaad ka soo kacaysaa aakhira waad ka soo kacaysaa adduunyadii way dhammaatay oo horaad adduunyadii uga soo dhammaatay hadda taanna waad soo kacday oo waa lagu soo saaray aakhiradii baad taagantahay laakiin markaa maxaa ku xiga ولا تحاسبن بما تعملون waxaa hadda aad samaynaysaan baa laydinku xisaabinaya marka camalkaani waxaana ku socotaan xisaab baa ka dambaysa xisaabtaas maxay natiijadeeda noqonaysaa wa inaha aljannatu abadan aw innaaru abadan ama waxay ku dambaynaysaa inaad janno weligaa ku jirto haddii wixii lagu diraa ka soo baxdo ilaahay keliya caabudo oo shirkiga ka fogaato acmaasha saalixaadana la imaato ama inaad naar ku waarto walciyaadu billaah haddii alla aad ku kufriso oo shirki la timaado oo ilaahay subxaana wa tacaala aad xaqii uu kugu lahay ugu horeyso ahayd an tacbudahu waxdahu aad la imaan weyso intii markuu nabiga calayhi salaatu wasalaam yiri waxaa hadlay abu taalib oo yiri annaga waxaan nahay qolada ugu xaq leh inaan ku gurmano nasiixadaada aqbalno warkaagana rumayno ma garate marka yacni aniguna iyagaas dadkaas baan la mid ahayo laakiin waxaan ahay ninka ugu sii dadaal badan inuu kuu gurmado baan ahay hawshaada gudo waana maaragtay ku garab istaagaya waana ku taageerayaa buu yidhi laakiin nafteyda ima siinayso inaan diintii aabbahay cabdilmutalib inaan ka baxo nafteyda ima siinayso ayuu yidhi laakiin waan ku garab istaagayaa qoomkaaguna way ku garab istaagayaan qaraabadaada anigana waxaan ahay ninkooda ugu dadaal badan ee kusii garab istaagaya abulahab baa hadlay sida riwaayaadka sheegay inuu joogay wuxuu yidhi tani waa ceb waana sharaf daro waxaana habboon inaan annaga gacanta ku qabanno intii carabi inta nagu timaado markii hore hadalkiisa noogu jirta ay nagu soo duusho ay markaas anaga dhanna wada qaban leh hadda inaan qabanno ayaa maaragtay ayaa habboon buu yidhi abulahab intaa kadib nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin buu wuxuu soo dul istaagay buurta safa ayuu istaagay meesha ayuu dadkii dhan ugu yeeray uu yidhi maaragtay yaa sabaaxaa waa kelimad dadka la isugu yeero markii ay wax dhacaan ayay ahaan jirtay marka dadkii dhan baa isugu yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam baa la hadlay wuxuu yidhi ka warrama haddii aan idin idhaahdo buurtan gadaasheeda cadow baa ka soo socda oo idinku soo fool leh haddaan idin idhaahdo ka warrama waxay yidhaahdeen macnaa miyay rumayn lahaydeen waxay yidhahdeen haa annaga been maba kugu naqaanaba maa jarabnaa calayka kadiban maa jarabnaa calayka ilaa sadqan run baan kugu naqaanaa wuxuu yidhi haddani waxaan idin ahay qof idiin digaaya waxaan idinkaga digayaa
cadaab adag oo kulul oo alla agtiisa lagala kulmaayo. haddii wuxuu ugu yeeray marka tawxiidkii u sharxay, ilaahay subxana watacaala buu ugu yeeray. marka wuxuu yidhi maarata anigana rasuulka ilaahay baan ahay, waxaan ahay mid idin digaaya oo cadaabka alla idinkiiga digaaya. cadaabkaasna waxaa looga badbaadayaa in ilaahay la waaxido, shirkigana laga fogaado ayaa looga badbaadaya. abulahab baa marka u jawaabay oo yidhi tabban laka saa'ir alyowm, maaragta hoog aa kugu dhacee maanta ma waxaad noogu yeertay alihaadaa jamactana, ma waxaana noogu yeertay ma garatay. aad buu maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam hadalkii ugu celiyey. marka nabiga calayhi salaatu wasalaamna dadkii waanadiisii ayuu ka gutay, si guud iyo si gaara ula hadlay. maaragtay maxay ahayd, qolo qolo ula hadlay, qabiil qabiil ula hadlay, reer fulaan, reer bani fulaan, reer bani fulaan. uu yidhi anqiduu anfusakum min annaar, naftiina naarta ka badbaadiya, innii laa amliku lakum min allaahi shay, ani wax aan idin awoodo oon idin tari kara male. inaan idin digo, idin waaniyo, idin sheega mooyaane waxba idinma tari karo. ee ilaahay cadaabkiisa naftiina ka badbaadiya, ma garatay, ayuu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam. halkan ayaan ku ekeysanaynaa xalaqadani. intaan xalaqo kale kaga kulmi doonno waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.